soo dhawaada daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo macluumaad kale oo muhiim ah. waxaa soo kordhay saacadihii la soo dhaafay. waa maxay ciidamada dowladda Iiraan ee la sheegay inay geysay deegaano ka tirsan gudaha dalka Suuriya, ciidanka ay soo dhoobtay xadka ay dalka Syria ay la wadaagaan, Spain oo ku dhawaaqday arrin ay Carabta iyo dowladaha kale Islaamka ay ka aamuseen. maxaa ka jira khilaafka la sheegay inuu soo kala dhex galay Benjamin Netanyahu iyo taliyaha ciidamada qalabka sida Israa'iil. cabsida xooggan ee ka jirta gudaha dalka Mareykanka, la taliyaha amniga qaranka Mareykanka hadalka uu jeediyey. Israa'iil miya aaga kale oo dagaal ay ku furmi doonaan. wadahadallada dhex maray Mareykanka iyo dowladda Masar ee ka dhacay madaxtooyada dowladda Masar. shacabka Falastiiniyiinta oo dib biyihii u helay iyo macluumaadyo kale. soo dhawaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeena, aad baad u mahadsan tahay. soo kordhay saacadihii la soo dhaafay. dadka shacabka ee ku nool marinka Gaza ayaa gelinkii dambe ee maanta waxay dib ay u heleen adeegii biyaha, iyadoo weli sida la sheegay qaybo ka mid ah magaalada korontadii aysan helin iyo waxyaabaha kale ee aasaasiga ah. wasiirka tamarta Israa'iil oo warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay kadib markii Benjamin Netanyahu iyo madaxweyne Joe Biden ay wada hadleen in heshiiskaasi la gaaray axadda maanta ah in dadka shacabka ah ee ku nool koonfurta marinka Gaza ay dib ay u helaan adeegyada aasaasiga ah. Israa'iil weli waxay wadaa duqeymaha ay ka fulinayso dalka Lubnaan. caawa gantaale Israa'iil ee tuurta ayaa ku dhacay magaalada Kafarkiila lagu magacaabo. magaaladan waxay dhacdaa dhanka koonfureed ee dalka Lubnaan. mar walbaana dhinacaas waxay noqon karaan aagag kale oo dagaal oo Israa'iil ku soo furmaa. kumanaan dada ayaa weli laga baqaya inay ku hoos jiraan dhismayaasha burburay ee marinka Gaza, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta difaaca rayidka ee marinka Gaza. ilaa iyo in ka badan 1,000 ruux ayaana la tuhunsan yahay in dhismayaashii la burburiyo tan iyo sabtidii lasoo dhaafay inay ku hoos jiraan. Xamaas iyo Islaamic Jihad war cusub ayay soo saareen. afhayeen u hadlay ciidanka ama guutada Al-Qudus la yiraahdo oo ah garabka military Islamic Jihad oo Abu Hamza lagu magacaabo ayaa cod iska soo duubay. guud ahaan warbaahinta dunida ayaana si weyn u baahinaysa, si gaar ahaan telefishinka Al Jazeera, waxaana uu shaacu kaga qaaday inay diyaar u yihiin mar walba inay iska difaacaan ciidamada Israa'iil. waxaana uu yiri waxaynu u diyaarinay oo aan ku soo dhaweynaynaa naarta. dhammaan askarta gumeystaha ee isku diyaarinaya inay soo galaan marinka Gaza waxaan leenahay ku soo dhawaada naarta. nidaam difaaciidka loo yaqaano Iron Beam ayaa markii ugu horeysay la arkay iyadoo Israa'iil ay isticmaalayso si ay ugu soo rido gantaalada tirada badan ee Xamaas ay ku garaacday magaalooyin waaweyn oo ka tirsan gudaha Israa'iil. weli duqeymuhu waa ay soconayaan, waana maalintii 9aad ee dagaalka. sidoo kale caawa waqooyiga marinka Gaza qaybo ka mid ah gantaale ayaa ku dhacay. madaxii hore hay'adda sirdoonka ee Israa'iil oo la hadlay kanaal 13 oo Israa'iil laga leeyahay waxa uu yiri Xamaas waxay noo diyaarinaysaa dabin istiraatiiji ah, waana in la burburiyaa cisbitaalka lagu magacaabo Al-Shifa. aan dul tagnay cisbitaalka marka hore. waa kan cisbitaalka, halkan ayuu ku yaalaa. waa bartamaha magaalada Gaza, gaar ahaan dhanka koonfureed. Deni Yatom oo ah madaxii hore hay'adda sirdoonka ee Mossad ee Israa'iil marka waxa uu yiri cisbitaalka Shifa ee marinka Gaza ku yaala waa in la burburiyaa. sababtoo abuu yiri waa gaashaanka dadka xilalka sarahaya ee iska caabinta Falastiiniyiinta, waana goob ay ku dhuumanayaan. waana inaan mar walba aan eegnaa dhinaca waqooyi oo maskaxda aan ku haynaa buu yiri dabinka istiraatiijiyadeed oo ay noo diyaarinayaan Xamaas. iyadoo ninkaas sidaas ugu hadlay ayaa haddana wasiirka maaliyadda Israa'iil ee iminka talada haya wuxuu yiri waa inaan qirannaa guuldarradeenna iyo dhibaatadana soo gaartay. waa in cashir aan ka baranaa xanuunkii nagu dhacay, sidoo kalena aan bannaanka la nimaada madaxa oo aanan dhulka aadin, islamarkaana aan qirannaa guuldarradeenna. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Antony Blinken ayaa magaalada Qaahira waxa uu maanta kula kulmay madaxweynaha dowladda Masar Cabdifataax al-Siisi. cabdifataax al-Siisi wasiirka isagoo garab taagan ayaa waxa uu yiri ma ahan wax la aqbali karayo waxa Israa'iiliyiinta sameynayaan, mana ahan difaac nafsadeed oo kaliya. waxay Israa'iil sameeyeen waa ciqaab wadareed loo geystay dadka rayidka ah. sidaas daraadeed waan ka soo horjeednaa mar walba in la bartilmaameysado dadka rayidka ah. waxaana uu ka digay in duqeymaha iyo gantaalada ay sii socdaan. wuxuuna sheegay in ka badan 2,500 oo ruux inay geeriyoodeen tan iyo sabtidii lasoo dhaafay. sidoo kale waxa uu caddeeyey in gargaarka la marsiin doono gacanka Sinai oo dhanka iyo dowladda Masar ah si loo gaarsiiyo marinka Gaza. hay-adda bisha cas ee dowladda Masar ayuuna sheegay inay ka shaqayn doonto. Cabdifataax al-Siisi waxa kale uu sheegay in marinka Rafax ay adkaan doonto inay dadka Falastiiniyiinta ay kasoo gudbaan, sidoo kalena ay weli ku taagan yihiin go'aankoodii ahaa in dadka rayidka guryahooda laga raro. waa dalkii 6aad oo carbeed oo Antony Blinken uu tagaa tan iyo markii uu socdaalkiisa kasoo bilaabay Israa'iil. Jordan, Qatar, Bahrain, Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo sidoo kale dalka Masar ayuu tagay.
markii ugu horreysay dowladda Spain ayaa waxay ku dhawaaqday hadal ay si weyn kaga gambanayeen ama aysan ku dhiiranba inay ku dhawaaqaan madaxda carabta. wasiirka xuquuqda bulshada ee dowladda Spain Ayuna Pereira gabadha lagu magacaabo ayaa waxa ay tiri waa in Netanyahu la keenaa ama la soo saaraa maxkamadda dambiyada dagaalka ICC. ra'iisul wasaare Netanyahu waxa maxkamadda loo horgeynayaa bay tiri dambiyada dagaal uu ka geystay marinka Gaza. waxna ma dhaamaan dambiyada uu geystay bay tiri wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine. Pereira gabadha lagu magacaabo waxay carabku ku adkaysay in dadka reer Gaza lagu hayo xasuuq ay taageerayaan Mareykanka iyo dalalka qaaradda Yurub, waxaana ay ku baaqday in arrintaasi la diido go'aan cadna laga qaato. sidaa daraaddeed waxay tiri waa in Netanyahu maxkamadda ICC la soo taagaa. dhinaca kale dowladda Iiraan waxaa lagu warramayaa inay dhaqdhaqaaq ay wado, waana midda walaaca xoogan ku abuurtay Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka, waxaana laga baqayaa in aag kale oo dagaal dhinaca Iiraan ay noqoto. laakiin dowladda Iiraan waxay tiri haddii danaheenna iyo muwaadiniinteenna lasoo weeraro marnaba ma fadhiisan doonno. iyadoo sidaasay tahay marka ayaa wargeyska Wall Street Journal wuxuu caawa daabacay macluumaadka ku saabsan in dowladda Iiraan ay askar badan ee u dhaqaajisay gudaha dalka Syria. gaar ahaan waxaa la sheegay in qaarkood loo soo diray in ay gaaraan dhanka xuduudda ee Syria iyo ay wadaagaan Israa'iil, halka ciidan tiro badanna la dhigay xuduudda Syria iyo dowladda Iiraan ay wadaagaan. si gaar ahaaneed magaalada Deir ez-Zor lagu magacaabo ayaa la tuhmayaa in la geeyay ciidankii ugu tirada badnaa, gaar ahaanna nooca qaabilsan ama guutooyinka qaabilsan gantaalada. wargeyska marka waxa uu taagan yahay ciidamadan waxay noqon karaan furin kale oo cusub oo Israa'iil ku soo baxda dhanka gobolka haddii xaaladdu ay cirka gaarto. ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ayaa la sheegay in la geeyay gudaha dalka Syria. ujeeddadu waxay tahay inay dhanka koonfureed ee magaalada Dimashq meel u dhow ay tagaan, sida laga soo xigtay la taliya sare oo ka tirsan dowladda Syria. magaalada Deir ez-Zorna waxaa la geeyay ciidankii ugu tirada badnaa. ciidamada qaas ahaaneed ee dowladda Iiraan ee halkaasi ugu talagashayna waa guutada qaabilsan gantaalada. waxyar uun kadib markii macluumaadkaas uu soo baxay, la taliyaha amniga qaranka ee dowladda Mareykanka Jack Sullivan waxa uu yiri waxaa jirta khatar aad u weyn oo dhanka Xisbullah ama Iiraan ka imaan karaysa, taas oo suuragal ah inay si toosa dagaalka ugu soo biiraan ayna garab istaagaan Xamaas. Iiraan dhankeeda waxaa muuqanaysa in la doonayo dagaalka in lagu soo jiido, laakiin Israa'iil ayaa dhaqdhaqaaqyadaasi samaynaysa oo dhowr jeer Syria iyo Lubnaan ayay weerartay. Syria iyo Lubnaanna waxaa ku sugan dagaalyahano dowladda Iiraan ay taageerto. Iiraan mar hore ayay go'doomisay Israa'iil marka la eego istaraatiijiyadda kooxaha kala duwan ay taageerto. Israa'iilna waxay doonaysaa koox kasta ama Syria ama Lubnaan ku sugan inay ogaato awoodda hubka ay haystaan, maadaama la tuhunsan yahay inay Iiraaniyiinta dhaqaalo badan ay ku bixiyaan. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxaa lagu warramayaa in khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo taliyaha ciidamada qalabka sida, inkastoo macluumaad dheeraad ah uusan ka bixin wargeyska Channel 13 la yiraahdo Israa'iil laga leeyahay. Netanyahu ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay inuu Joe Biden uu ku casuumay inuu yimaado magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil si uu garab istaag ugu muujiyo shacabka Israa'iiliyiinta, laakiin lama sheegin codsigaas in laga soo jawaabay iyo in kale. hay'adda FBI-da ee dalka Mareykankana waxay leedahay waxaana soo gaaraya macluumaadyo badan oo ku saabsan qatar inay wajahayaan dadka Yahuudda iyo kuwa Muslimiinta ee ku nool gudaha dalka Mareykanka. sidaa daraaddeed feejignaan waa in la galaa. wakaaladda wararka AAP ayaa baahisa macluumaadkaas. dhinaca kalena isku dhaca ay gantaalada isweydaarsanayaan Israa'iil iyo Xisbullah weli waa ay soconayaan. afhayeen u hadla ciidamada Israa'iilna waxa uu shaacu ka qaaday in Xisbullah ay doonayaan dagaalka inay ku soo biiraan, taasina ay noqon karto jiha kale maadaama dowladda Iiraan ay hagayso Xisbullah iyo kooxaha kale ee halkaasi ku sugan. ugu yaraana 2 ilaa 3 aag oo kale ayaa laga baqayaa in Israa'iiliyiinta ay ku furmaan. walaaca ugu badan ee Israa'iiliyiinta ay qabaanna waxay tahay diyaaradaha droniska oo isticmaalayaan Xamaas. qaarkood waxaa la sheegay inay u eg yihiin kuwa laga isticmaalay gudaha dalka Ukraine. taa micnaheeda waa la socota ayaan u malaynayaa. waa Iiraan oo horeyna loogu eeday inay Ruushka ku taageertay diyaarada dronisa, Xamaasna saaxiib ay la tahay. wararkii ugu dambeeyay haddii aan eegno waxaa lagu warramayaa in goob ay ku sugnaayeen dad rayda, gaar ahaan xero qaxooto oo Nusayraad la yiraahdo oo dhacda bartamaha magaalada Gaza in caawa gantaal uu ku dhacay, kaas oo sababay in caruur badan ay ku geeriyoodaan goobta. dhinaca kalena Israa'iil iyo Xisbullah weli way istijaabinayaan oo gantaalo ayay isweydaarsanayaan. waxaa kaloo soo baxaya diyaarado joog hoose ku socda oo labada dhinacba ay leeyihiin inay hawada dhanka xuduudda ay dul heehaabayaan. wararkaas ayaa waqti xadirkan ugu waaweyn guud ahaan dagaalka soconaya. la soco waxyaabaha ka soo kordhay insha Allah.